بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد qisadan uu ka sheekeynayo shiiqan ilaahay subxaana watacaala ha xifdiyo hadduu nool yahay waxaa la yidhaahdaa baa layidhi magaciisa sheekh hishaam alburhani suuriya ayaa la iigu sheegay ninkaas waa yeelka ee qisada marinaya marka qof baa wuxuu iga codsaday in aan tarjamo fasiro tarjumo oo aan af soomaaliyeeyo marka qisada waxay ku saabsan tahay fadliga iyo wanaagga uu leeyahay cilmiga oo la dalbo cilmiga sharciga qofka cilmiga inuu barto iyo weliba fadliga laga helo qofka cilmiga baranaya in loo kaalmeeyo oo waxaa weeyaan laga caawiyo noloshii adigoo cilmiga baranaynin inaad u kaalmeyso dadka cilmiga baranaya sheekha wuxuu leeyahay waa qiso dhacday oo usoo joogay awowayaashiis nin ka mid ah ayaa usoo joogay awowayaashiis hore marka wuxuu leeyahay maqbaradan bayba ka dhacday qabuurahan loo yaqaano daxdax waa qabuuro ayaga ay garanayaan oo aan malaynaa dimashq caasimadda suuriya dimashq marka wuxuu leeyahay nin baa xafaar ahaa oo qabriyada ayuu qodi jiray marka islaam baa u timid waxay ku tiri wiil baa iga dhintay qabri ii diyaari qabriguu diyaariyey kadibna meydkii baa la keenay waa la soo dejiyey qabriga markuu la dhigayay marka gudaha dadkii ku jiray ayuu ku jirayba isaga micnihii buddiga u noqday markii uu saas qabriga u dhigay ayaa waxaa furantay qabriga ka furmay beeraha jannada ka mid ah iska weynaato qurux badanoo waxaa yimid laba nin oo faras wata meydkiibana waa la tegeen ba soo ujeeda dadkii kale ma arkaan saa arka wuu mir daboolmay qabriga laga soo bixiyey waa la rusheeyey dadku waa iska tegeen maamadii canugu ka dhintay waa iska tegtay waxa may ogaanin qisadii iyo ninkaa wax ku dhacay kadib baa marka uu warramay oo yidhi saasaan arkay muddo kadib aan badnayn ayaa haddana waxaa yimid waxaa la keenay meyd kale meydkii marka la keenay qabrigiibu sidoo kale uu u diyaariyey markuu galay oo qabrigii dhigay wuxuu arkay sidii marka hore beerar janno iyo quruxdii iyo wixii uu arkay markaan ma miir daboolmin qabrigu ka soo baxay yaa dhalay canugan qofkan meydka ah nin dhalinyaro isagana ahaa islaantii baa loo sheegay uu ka daba orday markaasaa waxay tiri ma ii tacsiyey sid canug baa iga dhintay su-aalahan iyo maadaa dhalayda waxaan waqti yani lama jooga camal markaasaa wuxuu ku yidhi ayada waxay u raacisay musiibadii labaad weeyo yani muddo yar gudaheeda igu dhacaysa oo yani waxaa weye canug ba ayaan dhexaa saasoo kale aan keenay markaasaa wuxuu yidhi kii horena maadaa dhalay maxaa dhacay bay tiri wuxuu yidhi cajab baan arkay wax la yaab lahaan arkay maxaad aragtay markaad keenteen meydkii hore saasaa dhacday oo beer jannaa furantay oo waa lala tegay oo niman faras wataa kaxeeyey meydkii waan miir daboolmay haddana ninkan kaleoo keenteen sidoo kale wey maxay qaban jireen waxay tiri mid wuxuu ahaa daalibulcilmi cilmiga sharciga uu baran jiray diintuu baran jiray midka kale najaar buu ahaa alwaaxda iyo waxaas ka shaqeeya marka ninkan uu biili jiro oo caawin jiray cilmiga baranayo saasay marka ahaayeen xaaladoodii marka sheekh wuxuu leeyahay ninkii marka uu iska dhaafay qabri qodidii marka cimrigiisa waa nin weyn oo 45 sano dhaafay wuxuu u imaadu leeyahay awowgay oo markaa cilmiga inuu rabo uu ka barto ma hadda adoo intaan la cilmi baranaysa ahaa ajruumiga loo bilaabo markaas kadib sheekh caalim uu noqday oo sheekh cabdiraxmaan alxafaar la yidhaahdo ilaa duriyadiisii wuxuu leeyahay cilmiga iska dhexli jireen oo waxaa soo dhawaaday mar dhow uu leeyahay sheekh cabdirasaaq xafaar sheekh cabdirasaaq alxafaar xafaar magaceeda la socdo qabri qodida ahayd xafaar macnaha ninkii qabriyada qoda weyaan
marka culumu isu bedelay dhashiisana culumay noqdeen qiso saas weeyaan wixii aan ka tegey waxaa laga yaabaa inaan wada koobi karin laakiin ujeedada iyo madmuunka qisada uu sheekhu uu leeyahay wax dhacay oo waxaa weeyaan aan sheeko bareley ahayn khayaal iyo ismoodsiis ma aha sheeko la alifay ma aha marka waa cibro ayaa ku sugan annagoo og qabriga inuu beerjan noqonayo laakiin qeyb naga tahay mararka qaar in qof la tusiyo waxyaalahaas oo kale ama dadka qaar cadaabul qabrigaba ay arkaan iyagoo nool oo la tusiyo dad la cadaabayo way jiraan qisooyinka noocaasa kitaabada qaar waad ku arkaysaa kitaabka alkabaa'ir oo kale oo dahabi iyo kuwo kale marka waa mararka qaar baa ilaahay subxaana watacaala uu dadka qaar tusiyaa marka ilaah naga dhigo kuwo cilmiga barta kuna dhaqmo kuwa u kaalmeeyo ahlu cilmiga dalabatu cilmiga iyo culummada jecel oo garab siiya ilaahay naga dhigo allahuma salli calaa maxamed جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته